kula wacan wanaagsan daawadayaal halkani waa tubta wararka waxaad ku soo dhawaataan barnaamij wareedkeena qodobada waxaan diiradda ku saari doonaa xaaladii ugu dambeysay Muqdisho iyo xukuumadda Soomaaliya oo qiratay fashilka ku yimiday shirka golaha wadatashiga qaran qodobada aad ku daawan doontaan waxaa ka mid noqonaya jawiga caasimadda Muqdisho ee Soomaaliya oo kacsan xilli ciidamada badbaado qaran ee dhaqaaqyo ciidan ay ka wadaan qaybo badan oo kamid ah magaalada Muqdisho oo idin soo gudbin doona saaxiibayaal iyo xogihii ugu dambeeyay sidoo kale waxaad ku daawan doontaan xukuumadda Soomaaliya oo qiratay fashil ku yimiday shirka golaha wadatashiga qaran xilli Cabdilcasiis Xasan Maxamed Laftagreen oo isaga soo carray shirkii golaha wadatashiga qaran oo idin soo gudbin doona saaxiibayaal sidoo kale waxaad ku daawan doontaan barnaamij wareedkeena intuu hawada ku jiro ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ciidamada badbaado qaran ka dalbaday inay xaaladda dejiyaan kana warsugaan xilli la laayahay Erebijan halka uu dhigay madaxweynihii hore ee dalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo waa idin soo gudbin doonaa saaxiibayaal sidoo kale waxaad ku daawan doontaan senator Muuse Suudi Yalaxow oo balanqaad u sameeyay ciidamada badbaado qaran ee Muqdisho soo gaaray sidoo kale ciidamo kale oo badbaado qaran ayuu dalbaday saaxiibayaal waa idin soo gudbin doonaa oo barnaamij wareedkeena ayaad ku daawan doontaan qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan halkani waa tubta wararka fadlan haddii ay tahay markii kugu horeysay ku soo gaaray waxaan kaa codsanaynaa subscribe dheh channelkeena YouTube-ka ee tubta wararka sidoo kale gambeelka furo si wararka loo soo dhigay ku soo gaaraan inta badan Soomaalida wararka waaweyn ee caalamka ayaan soo gudbinaa saaxiibayaal nala saaxiib joogta naga dhigo mahadsanida aan ku bilownay gebi ahaan waxaa qasan jawiga caasimadda Muqdisho ee Soomaaliya iyadoo aad dhaqaaqyo ciidan oo iska soo horjeeda laga dareemayo inta badan xarumaha ugu muhiimsan ee Muqdisho ku yaala ee dawladdu waxaana si aad ah loogu baaqdin qabaa dhaqaaqyada ciidamada badbaado qaran ee sameynayaan ee ku aadan iyaga oo bartamaha iyo qaybo kale oo badan oo Muqdisho ka mid ah goostay waxayna duulaan guracan ay ku yihiinba ciidamo daacad u ah madaxweynihii hore ee dalka Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo sidoo kale ciidamada badbaado qaran ayaa gurmadyo kala gedisan ka soo kala gaarayaan gobolada Shabeellaha Dhexe iyo Shabeellaha Hoose sidoo kale gargaar ay isugu jiraba deeq raashin ah iyo xoolo nool iyo saanad military ayay gaarsiinayaan siyaasiyiin abqaryaal ah iyo sidoo kale xildhibaano baarlamaankii 10aad qayb ka ahaa waxaana la filayaa in Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo iyo tiimkiisa gabaha Muqdisho ay ka saaraan iyo dhulka Soomaaliya ee leedahayba si kasta ahaatee ciidamada badbaado qaran ayaa iyaguna howlgaladooda si laba jibaaraya waxayna wacd ku sii mareen ilaa inta Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ay kaga ciribtirayaan filla Soomaaliya ana ogolaanayo doorasho hufan oo daacad ah inay ka dhacdo Soomaaliya aysan dib u laaban doonin waxaa sidoo kale war ka soo baxay xukuumadda federaalka Soomaaliya ee ku qiratay in fashil uu ku yimiday shirkii golaha wadatashiga qaran ee ku aadanaa in lagu dhameystiro hanaanka guud ee doorashooyinka dalka iyadoo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble oo warbaahinta la hadlay ayaana sheegay in Cabdilcasiis Xasan Maxamed Laftagreen oo ahaa qof uu ka dhaxlayo madaxweynihii hore ee dalka iskuna dayay afgambi inuu kula wareego xukunka guud gaar ahaan xafiiska iyo howlka shirarka ee golaha wasiirada wuxuuna sheegay Laftagreen in uu aaminsan yahay Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo madaxweynihii hore ee dalka sidoo kale si qubad ah amba dhiig ku daatay lagu geeyay koonfur galbeed Soomaaliya inuu maamulo iyadoo si baadil ah ay u xirantahay doorashada ku soo baxay wadaadka lagu magacaabo Mukhtaar Roobo Cali aw Mansuur si kasta ahaatee injineer Maxamed Xuseen Roble oo dhinacyo badan ka hadlay ayaa sidoo kale ka dalbaday badbaado qaran inay jawiga dejiyaan kana warsugaan Maxamed Xuseen Roble ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya isagoo xaaladda dhinac u gadin doona doorashooyinka dalkuna mas'uuliyadda isagoo qaatay nabadda Soomaaliya iyagoo anfacayso sidoo kale inaysan dagaal ka dhicin Muqdisho oo daneynayo injineer Maxamed Xuseen Roble ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya weli waxaad daawanaysaan barnaamij wareedkeena daawadayaal halkani waa tubta wararka fadlan haddii ay tahay markii kugu horeysay ku soo gaaray waxaan kaa codsanaynaa subscribe barteena sidoo kale gambeelka furo si wararka loo soo dhigay ku soo gaaraan haddii aad ka mid tahay saaxiibadeena qaaska waxaan kaa codsanaynaa muuqaalkan share gare like saar si asxaab wanaagsan adoo kala helno qaybta hoosaadada ugu dheeb oo inoo muhiim daawade mahadsanid markaan waxaa Erebijan la yahay halka uu dhigay madaxweynihii hore ee dalka Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo kadib fashilkii ku yimiday shirka golaha wadatashiga qaran iyo ciidamada badbaado qaran oo qaybo badan oo Muqdisho ka mid ah
dhufeysay ka qotay iyagoo wacad ku marin farmaajo ay ka soo saari doonaan balse 24 saac ayaa la leeyahay Azerbaijan halka uu dhigay madaxweynihii hore ee dalka Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo taasi oo ku aadan hanaanka guud ee doorashooyinka dalka iyo likugoynta doorashada dalka iyo mas'uuliyadda uu qaatay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble sidoo kale tan ayaa ku sii muujinaysa culeysada saaran badbaadada qaran ee ku aadan soo qabashada villa Soomaaliya madaxweynaha ku gambanaya ee Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo iyagoo sheegay kaliya taliska ku gambanaya villa Soomaaliya in dhigta ka soo qaban doonaan ama xabsiga u taxaabi doonaanba Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo si kasta ha ahaatee xaaladda guud ee Muqdisho ayaa qasan waxaa la leeyahay Azerbaijan halka uu dhigay Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo madaxweynaha Soomaaliya si kasta ha ahaatee badbaadada qaran ciidamadaadu wacd ayay ku sii marayaan Senator Muuse Suudi Yalaxow ayaa gurmada isugu jira raashin xoolo nool iyo saanad military isagoo garba ka helayo xildhibaano ay ka mid yihiin Mahad Salaad Axmed Macalin Fiqi wasiirka amniga xukuumadda Soomaaliya Cabdullaahi Maxamed Nuur Ayraahdi isagoo ku wacd ku marayba in badbaadada qaran heel iyo hoy la garab taagan yihiin taa ku sii muujinayso culayskii cadaadiska saaran sidii villa Soomaaliya kaga saari lahaayeen kaliya taliska ragaadiga ku noqday villa Soomaaliya ee Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo dhinaca kale banaanbaxyo waaweyn oo ka dhan ah madaxweynihii hore ee dalka iyo sidoo kale hogaamiyaasha maamulada Galmudug iyo Koonfur Galbeed Cabdilcasiis Xasan Maxamed Laftagareen iyo Axmed Cabdikaari Qorqor ayaa galgalay caasimadda Muqdisho shacabka Soomaaliyeed ee ku nool caasimadda Muqdisho ayaa soo dhaweeyay natiijadii shirka golaha wadatashiga qaran ee soo saaran Ali Guudlaabe Sayid Cabdullaahi Deni Axmed Madoobe iyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble iyadoo taasina dhinacooda kale shirka ay ka baxeen duqa Muqdisho Umar Finish Laftagareen iyo Qorqor kuwa oo garab u fidiyay madaxweynihii hore ee dalka Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo banaanbaxyadan ayaana isugu soo baxay jidadka waaweyn ee Muqdisho iyagoo dalbanayay in la taageero go'aankii ka soo baxay shirka golaha wadatashiga qaran mas'uuliyadda amniga dalka lagu wareejiyay Maxamed Xuseen Roble ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya sidoo kale uu noqdo Farmaajo musharax oo qura boorarkii wateen banaanbaxayaashu ayaa ku shardhaneed dooni meene kaliya talis dooni meene hagaadiga kaliya taliska Muqdisho burburi rafaad way soo aragtay markaan ma filayso iyo hadallo kale oo Farmaajo dooni meeno iyo waxyaabo kale ay ku dhawaaqayeen banaanbaxayaashu isugu soo baxay Muqdisho balse dhag jalaq buu u siin doonaa kaliya taliska villa Soomaaliya gabaadka ka dhiganayo badbaado qaran wacadku ku martay korkiisana ay taagan yihiin goordhowna qoorta ka soo qaban doonaan xaaladda Muqdisho way kacsan tahay jawigu waa ka duwan yahay maalmihii hore banaanbaxyo ayaa ragaadinayo Farmaajo si goob oo Azerbaijan ayaa la leeyahay Roble wuxuu ku baaqay in badbaado qaran isdajiyaan warkuna ay ka sugaan ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble halkani waa tubta wararka fadlan hadii ay tahay markii kugu horeysay ku soo gaaray waxaan ka codsanaynaa subscribe barteena amba channelkeena ee tubta wararka sidoo kale gambeelka furo si wararka loo soo dhigay ku soo garan waxaan ka sheekeynaa wararka Soomaalida ugu waaweyn ee caalamka hadii aad xiisasid saaxiib naga dhigo annagana saaxiib ayaan ka dhigan doonaa muuqaalkan share gare si saaxiib wanaagsan adigoo kale aan helno qaybta hoos aragtada noogu reebo inoo muhiim muuqaalka like saar si asxaab wanaagsan adigoo kale oo u gaaro waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkani waxay noo madalaa muuqaalkan kiis xiga hadii way baweyne na gaarsiiyo waxaan idin rajeynayaa caafimaad saaxiibayaal